Tigreena ay jiraan Suudaanna Itoobiya xuduud la leedahay gobolkan Walqayti iyo Waqooyimarna meesha uu jiro Amxaara iyo Tigreena ay ku murmahayaan in aysan Suudaan joojin doonin faragelinta Itoobiya Masarna aysan istaajin doonin in ay garab siiso Suudaan dhinaca kalena xaaladan dalka Itoobiya aysan degi doonin Tigreeguna hagaadha kulan waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socotay meel walba aad joogtaan iyo si walba aad maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada wararkeena ugu doorroona waxaa kamid ah TPLF oo soo bandhigtay ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan ilaalada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxayna sheegeen inay ku qabteen dagaaladii ugu dambeeyay dawladda Eritrea waxay wacad ku martay inay burburin doonto ayna weerari doonto dalka Suudaan xilli dawladda federaalka ee Itoobiya maalmihii ugu dambeysay ay ku eedeysay Suudaan inay ciidamo u soo dirtay iyo diyaaradaha dagaalka gobolka Tigreega madaxda Tigreegana meel ay jaaniya cirib dhigaan waa la leeyahay iyadoo maalmihii ugu dambeysayba duqeymo xoogan ay ka socdeen gudaha deegaanka Tigreega kuwaasi oo ay sameynayeen ciidamada cirka ee dalka Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo iskarabsanaya Burhanu Jula taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya wuxuu sheegay in lagu soo duulay madax banaanida iyo qarannimada dalka Itoobiya jabhadda Ogo oo gacan saar la leh TPLF waxay la wareegtay degmada Saale iyo deegaano badan oo hoos yimaada degmadaasi warbixinayaan idinka haynaa waxaana gabi ahaan warkeena ku eegay doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya iyo dagaalada baahsan ee ka socda gudaha dalka Itoobiya waxaana istuuri ay kula sugan saaxiibkay Daacad oo isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya Daacusuru waan dhawaysan taago dhammaan saaxiibadan dhageysanayana waan salaamayaa haddii aynu ku bilowno TPLF waxay sheegtay in ay gacanta ku dhigtay ciidamo aad u tiro badan oo ka tirsan ilaalada ra'iisul wasaare Abiy Ahmed bal maxaa ka jira sheegashooyinka TPLF Santiago aad baad u mahadsan tahay TPLF maanta waxay soo bandhigtay tiro kamid ah ciidamada ilaalada madaxtooyada ee dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa ee loo yaqaano Republican Guard ama loo yaqaano ciidanka ilaalada madaxtooyada ama koofiyad guduuda ciidamadaasi waa ciidamo aad u tababaran oo waxa weeye fara badan bayna waliba soo bandhigtay waxayna sheegtay inay ku qabteen dagaaladii maalmihii u dambeeyay ka socday gobolka Tigreega dhinaca dawladda federaalka Itoobiya wax wara kama soo bixin ilaa iyo haddana dawladda Itoobiya way ka aamusan tahay maalmihii u dambeeyayna waxaa soo baxaysay Santiago in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu furimaha ku aruurinayo ciidamo kala duwan oo ka kala imaaday deegaanada kala duwan ee dalka Itoobiya sidoo kale ciidanka militariga waxa kale oo soo baxay maalmihii u dambeysay in diyaaradda Ethiopian Airlines lagu aruuriyay ama lagu raray ciidankii ilaalada madaxtooyada oo laga soo kala xulay qaybaha kala duwan ee ciidanka militariga Itoobiya dhinaca kalena si gaar ah loo tababaray khibrad dheeraad ah la siiyay walibana ciidamadan waxa qayb ka ah la yiri ciidamada la dagaalanka argagixisada TPLF marka waxay sheegeen ciidamadaasi markii ay dagaalka iska hor yimaadeen meeshii ay la dagaalami lahaayeen inay hubki daadiyeen dhinaca kalena ay bataata magacanta ku dhigan ciidankaas wagaag maalmihii ugu dambeysay Tigreegu waxay soo bandhigayeen ciidamo kala duwan saraakiil sarsare oo iskugu jira Ethiopian iyo Eritrean labadaba iskugu jira dagaaladii ugu dambeysay waxay sheegeen in ay guulo ka gaadheen dawladdu waxay sheegtay awoodeedii in ay iskugu geysay halkaasi isla markaana Tigreega ay la dagaalayso oo iska celinayaan Ethiopianka intooda badan waxaa lagu baaqay in ay dagaalka ay galaan deegaanka Axmaarada shacabkii hubka way qaateen jabhadihii ayaa dagaalamaya haddana awoodda inta dhanayd ee meesha la isku geeyay ma muuqato oo Tigreegu waxay soo bandhigayaan guulo ayay keenayaan bal guulahan iyo jabintan ciidamada ay jabinayaan maxaa sabab u ah isleedahay Santiago aad baad u mahadsan tahay maalmihii u dambeeyay dagaalo khadhaadh oo lagu hoobtay dhinaca kalena lagu halaagsamay oo maryo dhiig la kala furto labada dhinac ay ku baabeen ayaa ka socday deegaanada Canfarta iyo sidoo kale deegaanka kilalka Amxaarada sidaad ogtahayba iyo xuduudda dalka Itoobiya uu la leeyahay dalka Eritrea sidaad ogtahay Santiago dagaaladaasi ciidamada Itoobiya sheegay Tigreega waxay ku soo bandhigeen kumanaan ka tirsan ciidanka militariga Itoobiya qaybihiisa kala duwan oo caawan ay soo bandhigeen ciidanka koofiyad guduuda marka la fiiriyo dawladda Itoobiya waxay isku dayaysaa in awoodeeda cirka iyo tii dhulka iyo tii afantariga iyo tii waxa weeye deegaanada iyo dhaqaale kasta iskugu geysay shacabka Itoobiya dhinac walba waa laga abaabulahayaa Amxaaradu daafidii iyo wididii iyo waxa weeye shuuradiiba tunka iyo dhabar ku qaadayaan ciidankiiba ku dabaalaasayaan qaysaskii iyo waxa weeye wadaadadii diimaha waxa laga saaray kaniisadii waxa lagu yiri furinta taga oo dadkan dhiirre galiya si ay dagaal ku galaan haddana ciidanka Itoobiya wax guul ah way keeni laayeen waxaana loo sababaynayaa saddex arrimood arrinta koobaad kalsooni la'aan iyo muwaafaqad darro ka dhex taagan ciidamada militariga dalka Itoobiya midaas isha labaad
in nimankan ay la dagaalamayaan Tigreega aysan u arkinba niman cadow ah oo gobol dalka ka mid ah ay yihiin, sidoo kalena kursi lagu difaacanayo. marka nin u arko inuu ninku la dagaalamayo walaalkii u yahay muddada uu dagaalami karana waa dareemi kartaa. midda saddexaad, in Tigreegu ay yihiin naflacaari nafxoor ah oo aan istaagaynin, sidoo kalena iyagoo ordahaya xabadda ay ku dhacayso meesha ciidanka militarigu ay rabaan inay mushaar iyo dhaqaale iyo hantina qaataan, carruurtoodana dib oola qooqaan, oo ay nin waxa weeye meel fiican kasoo toosay iyo nin gubtay oon waxba iisha waxa weye dib u dhiganayn. saddexdaa arrimood marka la fiiriyo, Tigreegu awood iyo xawaaro zaa'id ah ayay dagaalkan ku soo galeen, dhinaca kalena ku burburiyeen fadhiisimihii ciidamada, kulana wareegeen saraakiil aad u fara badan, hub iyo taangiyo. laakiin warbixinada hordhaca ah een helayna galabta ilaa caawa waxay sheegayaan in deegaanka Waqoohumara dagaal khadhaadh oo maanta iyo shalayba socday oo la isku baaba'ay in TPLF lagu jabiyey, dhinaca kalena ciidamada militariga Ethiopia ay gudaha u galeen gobolka Tigreega qaybo ay haysteen TPLF. waxaa kaloo soo baxayo ay Tigreegu sheegeen in maalmihii u dambeeyey ay qaqabteen, dhinaca kalena ay meydkooda arkeen ciidamo xidhan direyska ciidanka militariga Ethiopia, balse teesarayaasha ama mustawaqiyiga ama sharciga Ethiopia laga isticmaalo midku doonaba ha ahaadee ay ka heleen, ama kaararka ciidanka militarigaba ay ka heleen waxa weeye waraaqo muujinayo in ciidamadaasi ay u dhasheen dalka Eritrea, taasoo Tigreega ay sheegeen inay tahay arrin walaac ku abuurtay, dhinaca kalena ay aad waxa weeye isha oga naxsan yihiin. dhinaca kale Tigreegu waxay ku xisaabtamayaan cadaawad ay u qabaan Siyaas Afwerki xukuumaddiisa, asagana cabsi weyn ayuu ka qabaa haddii Abiy Ahmed ay jabiyaan dhibaatada ku imaan karto. wahagaag Tigreegu hadda dagaal badan dhinacyo badan leba kaga socda, dhinaca deegaanka ama dalka Eritrea iyo Tigreegu ay wadaagaan dagaal ayaa ka socda, dhinacan kale deegaanka Canfarta iyo Tigreegu ay wadaagaan dagaal ayaa ka socda, dhinacan deegaanka Axmaarada iyo Tigreegana dagaalo lagu halaagsamay baa ka socda. ma la isdhihi karaa ciidamada intaa dhan Tigreeg ma ahee waxaa qayb ka ah jabhadaha ka dagaalamaya gudaha dalka Ethiopia? Santiago aad baad horta u mahadsan tahay. markaan fiirino dagaalka meesha ka socdo, ciidanka Ethiopia, liyu boolisyada deegaanada, ciidanka liyu booliska Amxaarada, liyu booliska Canfarta, maleeshiyada Faano, maleeshiyaadyada deegaanada, shacab la aruuriyey yaa ka qayb qaadanaya dhinaca dowladda federaalka Ethiopia iyo ciidamo Eritreana. dhinaca Tigreega markaan fiirino, waxaa dagaalkan ka qayb qaadanayo ciidanka Tigreega ee loo yaqaano TPLF ama TDF, jamhadda Ago ciidamo ka tirsan, jamhadda Qimaat ciidamo ka tirsan, jamhadda Gugulo ee Canfarta ciidamo ka tirsan. afartaa jamhadooda isu tegey ciidankoodiba meesha socdo oo ka dagaalamayo. dhinaca kalena Tigreega laftigooda waxaa la sheegayaa ciidamadii sanadkii hore ay qabteen ee militariga Ethiopia oo ay dib u carbiyeen, dhinaca kalena ay afkaartii iyo maskaxdii ku rakibnayd ka bedeleen, dhinaca kalena ay u arkaan taliska Abiy Ahmed iyo ayaguna isku mid yihiin inay dagaalka qayb ka yihiin. waxaa soo baxayoo kale inay jiraan ciidamo calooshoodu shaqaystayaala oo dagaalka qayb ka ah. isku soo duuduubo xaaladda dalka Ethiopia, eedaha ay isu jeedinayaan labada dhinac, iyo sidoo kale dagaalka hadda socda markaad fiiriso, waxa weeye meeshan arrin weyn baa ka taagan. daacadow jabhadahan aad sheegtay ee dagaalka kula jira ciidamada militariga ee ka garab dagaalamaya ciidamada TDF ama Tigreega, qowmiyadahee ayay ka soo jeedaan ama deegaanadee ayay ka soo jeedaan labadan jabhadood ee Qawo iyo Qimaat? aad baad u mahadsan tahay Santiago. labadan jamhadood ee Ago iyo Qimaatku inta badan waxay ka soo jeedaan deegaanadan la yidhaahdo Raaya gobolkan iyo Walqayd iyo sidoo kale gobolkan Wallo, iyo sidoo kale qaybo ka mida gobolkan Waqoohumara. intaasba way degan yihiin. waxaa ka mid ah jamhadahan hadda gobolkan hadda Wallo kale lagu dagaalamaya dad muslimiina oon Amxaarada Kiristaanka aan ahayn baa degan. jamhada ka mid ah dagaalamaya la leeyahay. Tigreeguna waxay ku soo abaabuleen in haddii ay Ethiopia qabsadaan ay ka dhigi doonaan dowlad deegaan ama kilal madax bannaan, Agoga inay ka dhigi doonaan the same, Qimaadka inay ka dhigi doonaan, deegaanka Amxaarada inay ka soo bixi doonaan oo ugu yaraan 5 ilaa 6 kilal. dadkii marka halkaa deganaa Amxaaradu ay dhibaato ku haysay, cirdigoodii iyo sharaftooda ay ku xadgudubtay, karaamadoodii ay tirtirtay, ay adoonsatay, magacii ay ka bedeshay, qaarkood ayagoo asal muslim ah ay gaalaysiisay, ayaa dagaalkan qayb ka ah oo dagaalka kala qayb qaadanayo. TPLF dhinaca kalena doonayo in Amxaarada Abiy Ahmed shuraakadiisa iyo tiimkan isku xidhan inay cagta mariyaan burburiyaan. wahagaag dhinaca kale dowladda Eritrea waxay wacad ku martay inay dagaal ku qaadayso dalka Suudaan,
maxaa ka dhexeeya suudaan iyo ama xiisada u dhexaysa suudaan iyo eritrea maxay tahay war hadda uu soo qoray qoraa dalka maraykanka u dhashay sidoo kalena ay faafiyeen activistayaasha dalka suudaan iyo sidoo kale shakhsiyaad uu ka mid yahay martin bluta uu ka mid yahay waxay sheegeen in dalka eritrea laga soo xigtay in ay weerar ku qaadi doonaan dalka suudaan marka ay soo afjaraan dagaalka ay kula jiraan fallaagada TPLF dhinaca kalena Abiy Ahmed gacanta loo geliyo magaalada Maqale arrintaasi waxaa lagu macneeyay in waxa weeye dagaalkan u dhaxeeyo biyo-xidheenkan Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia inta uu jiro Tigreena ay jiraan Suudaanna Ethiopia xuduud la leedahay gobolkan Walqayti iyo Qohmarna meesha uu jiro Amhara iyo Tigreena ay ku murmahayaan in aysan Suudaan joojin doonin faragelinta Ethiopia Masarna aysan istaajin doonin in ay garab siiso Suudaan dhinaca kalena xaaladan dalka Ethiopia aysan degi doonin Tigreeguna hagaadha inay awood heli doonaan iyadoo marka arrimahaas oo dhan la dhiraandhirinhayo la fiirinhayo waxaa salka loo saaray in dalkan Eritrea uu xukumo keligi taliyahan Siyaas Afwerki tan iyo intay xorriyadda ka qaateen Ethiopia in uu qorsheynhayo in dagaalkan ka socdo gobolka Tigreega laga dhigo mid caalami ah qaybna ay ka yihiin dawlado shisheeye sidaa daraadeedna ay qorsheynayso dalka Eritrea in ay duqeymo ku bilowdo gudaha dalka Suudaan waxaad moodaa dagaalka ay fafaalihiisa inuu hadda bilowday oo Suudaan durba ay ku bilowdeen duqeymo ay geysanayeen qoomiyadda Amxaarada iyo Booliska Amxaarada iyo ciidanka militariga Ethiopia shalay warka ka soo baxay waatuu ahaa Ethiopia taangiye nagu garaacday safiirkeedina waatay u yeelatay Ethiopia waatay ku eedeynaysay in Suudaan diyaarad ay soo martay hawadeeda iyo garoomadeeda dhinaca kalena ay gudaheeda ku tababaraysay ciidamo Tigre ah Tigreeg war laga soo xigtayna wuxuu ahaa qabsashada Qohmara waxay noo tahay guul weyn oo xiriir kala samaysan doono dalka Eritrea dalka Suudaan aan idhaahdee waxaa kaloo ayadana soo baxay muuqaal xalay baraha bulshada aan ku arkay sawir baabuur fara badan oo samtareelayaal iyo baabuurtan tareenada waaweyn ee ka shaqeeya gudaha dalka Masar oo lagu buufiyay calanka Suudaan iyo calanka Masar oo lagu qoray walaalaha biyaha Nile marnaba lagama guuleysan doono taasoo macnaheedu yahay saansaan colaadeed waxaad xasuusataa in dalka Masar uu ciidamo keenay dalka Suudaan dhinaca kale dowlatus military oo wada jir ah ay halkaas ku dhigteen waxaad xasuusataa in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud tagitaankiis dalka Masar warkii koobaad ka soo baxay ahayd waxaan wada difaaci doonaa qadiyada biyaha Nile taasoo macnaheedu yahay in colaadan Ethiopia cabaadkan ka yeeray dawladda federaalka Ethiopia TPLF tan kolba soo rogaal celinayso Siyaas Afwerki dagaalka qaybta ka doonayna TPLF madax soo qaado qabsashadan gobolka Walqayti iyo Qohmara iyo xaaladan murugsan reer galbeedkan waxaan dhamma kala isku celiyo in uu jiro dagaal saameyn doono geeska Afrika oo dhan wagaag taliyaha guud ee ciidamada dalka Ethiopia wuxuu sheegay in faragelin iyo sidoo kale madax banaanida dalka Ethiopia lagu xadgudbay bal dawladaha laga cabanayo ee ku soo xadgudbay faragelintana ku haya madax banaanida iyo qaranimada dalka Ethiopia waa kuwama Santiago sidaad ogtahay maanta waxaa hadlay Marshal Burhanu Jula waxa uu sheegay in lagu soo duulay qarannimada iyo jiritaanka dalka Ethiopia dhinaca kalena la doonayo in Ethiopia si casriyeysan loo burburiyo sidoo kale wuxuu sheegay in dagaalkan aysan TPLF oo kaliya ahayn balse uu jiro cadow soo jireen oo doonayo in uu burburiyo dalka Ethiopia Marshal Burhanu Jula marnaba ma magac dhabin dawladaha soo weeraray meelaha ay ka soo jeedaan cidda hogaaminayso iyo sidoo kale saldhigyada ay leeyihiin iyo saameyntooda marnaba ma sheegin dhinaca kalena ma xusin qaabka ay u soo weerareen iyo sida dagaalka uga qayb qaadanayaan laakiin maalin hore telefishinka qaranka Ethiopia Siyum oo ka hadlayay ahna la taliyaha ra'iisul wasaaraha waxa uu sheegay in dalka Ethiopia cidda burburinaysa ay tahay wadamada dariska oo markaa loo turjumi karo Masar iyo Suudaan iyo sidoo kale wadamada caalamka wuxuu yiri Ethiopia waxa lagu burburinayaa ama lagu jabinayaa qamandiga macaawinada loogu keeno hadalkaas oo macnaheedu ahaa hay'adaha qaramada midoobay waxay qayb ka yihiin burburinta iyo sidoo kale in Ethiopia laga dhigo wadan aan nabadgelyo ahayn oo xasilooni lahayn dhinaca kalena xukuumadda Abiy Ahmed caalamka xidhiidhka ay la leedahay marka aad fiiriso
cunaqabataynta la saaray dhaqaalaha maraykanka uu ka jartay cadaadiska ay ku hayaan ergooyinka loo soo dirahayay reer galbeedkii oo dhan oo dhinac ooga saftay dagaalkan ee ruushka iyo ukraine oo laftigu saameyn ku yeeshay lacagtii birta etoobiya oo dhulka ku dhacday waxaa weeye waddankii oon bad lahayn wax soo saar lahayn shidaalka dowlad deegaanka soomaalida ku jiro ishaynta u dhaxaysa shiinaha iyo maraykanka ee isku hayaan qaaraddan afrika iyo ganacsigeeda iyo sidoo kale saamaynta gobolka uu ku leeyahay isbeddelka hadba maalin kasta ka dhacayo waxaad arkaysaa in etoobiya xilligan aysan ahayn dal sii jiri karo abiy axmedna uu sii xukumi karo bal ee maanta ay u baahan tahay in uu ka dhaco isbeddel dhinaca kalena waxaa weeye etoobiya isbeddelka ka dhacaya laftigiisana uu saamayn ku yeesho gobolka oo dhan si guud arrimahaasoo dhan marka la eego etoobiya inay xilligan hadasho dhahdo waddamo caalami ahna soo weeraray ama dagaal nagu hayo waa wax iska caadi ah oo ma aha wax lala yaabo laakiin waxaad moodaa iyada laftigeedu in ay caddayn la'dahay dalalka soo weeraray qaabkay u soo weerareen iyo jidka loo maray isku soo duuduubo eedaymaha etoobiya ma dhammaanayaan tan iyo 2020 xilligu dagaalku qarxay ilaa hadda isku siin bay u wadeen wagaag jabhadahan hadda dagaalamaya ee TDF ama Tigreego ayagu ay number 1 ka yihiin inta badan bal leeyahay in ayagu ka dambeeyeen dhisitaankooda iyo hubayntoodaba ujeedkoodu ma in ra'iisul wasaaraha ay xukunka ka tuuraanba misane waxa weeye ujeedooyin kale oo ah in ay gooni goosad iyo sidoo kale wadamo madax banaan ay noqdaan Santiago arrintaasi waagii hore ee Tigreega dagaalka lagu qaadahayay yay soo baxaysay in badan laga hadlahayay la doonahayay hadda markaad fiiriso dagaalka qaabka u socdo Tigreegu sida aysan marnaba ugu dhiiranaynin in ay dhahaan Ethiopia waan ka go'aynaa ama inaan qaran madax bannaan noqonaan rabnaa weerarka ay ku soo hayaan gobolka Wallo ee markaas ay ku qabsan hayaan canfarta weerarka ay ku ekayn hayaan goboladan Walqayd iyo Qohmara xaaladoodan ka taagan xuduudan dalka Suudaan dowladda Ethiopia sida ay oga aamusan tahay Tigreega xaaladahaas oo markaad qiimayso waxaad moodaa aragtidii ahayd xurriyad iyo madax bannaani iyo gooni u goosad iyo ka bixitaan Ethiopia inuusan aad active u ahayn ama hadda uusan aad u shaqaynaynin laakiin waxaad moodaa in la doonahayo in Tigreegu ay wadankan mar kala qabsadaan inay iyagu doonahayaan Abiy Ahmed uu taa ka soo horjeeda laakiin taasi waxaa dhaawacday oo adhaxda ka jabisay oo Tigreega ra'yigiisa iyo rajadiisa oo dhan burburisay oo hal bacaad lagu lisay ka soo qaaday qabsashada goboladan Walqayd oo Qohmara iyo sidoo kale gobolkan Raaya oo ahaa dhul muran in badan uu ka taagnaa sanado badan oo Axmaarada iyo Tigreegu ay isku haysteen dhinaca kalena ra'yiga ah in dhulkaasi laga soo jaro oo Axmaarada la soo raaciyo dhinaca Ethiopia ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ka dhex guuxayo haddana dagaalkii markuu qarxay ee lagu guul dareysan waayay Abiy wuxuu damcay inuu gobolkaas iyagu u celiyo laakiin Axmaaradii way ka dhagaadeegtay hadda markii qadiyadu ma taagno gooni u goosad iyo xageenaadnaaye waxay taagan tahay badbaadada nolosha shacabka Tigreega iyo sidoo kale Tigreegu sidii ay mar uun ku heli lahaayeen nidaam ay nololna ku helaan dhaqaalana uu ku soo galay hay'adaha caalamkaana ay u soo mariyaan mucaawinada yar la soo marinayo oo maanta Tigreega qeylada ka soo baxaysa waxa kamid ah in oxygen-tii dadka xanuunsan lagu xidhaayay in la laayahay in maanta kaliya magaalada Maqal ay ku dhimatay 450 ayay Tigreegu sheegeen oo TV-gooda maanta ka sii daayeen waxay sheegeen in shirkadii ama warshadii sameynay naqaska inay burbureen oo gantaaladii ay ridahayeen diyaaradda Ethiopia ay burburiyeen arrimahaas oo dhan marka la fiiriyo arrinta xurriyadda iyo gooni istaaga ee Ethiopia wax shaqina u muuqato tan kale arrimahaas waxa ku fashilmayba jamhadihii ugu xoog badnaa oo ay kamid tahay midan Soomaalida ee ONLF ay kamid tahay oo ay kamid tahay midan Oromia ay kamid tahay yaa ra'yigaasi ku fashilmay dhinaca kalena guul ka gaari waayay Tigreego marka waxa weeye maanta waxba hayn siyaasad fawarka la dagaalamayo Walqayd iyo Qohmara iyo Raaya laga haysto Abiy Ahmed uu gees ka weerarayo iyaga la baabiinayo ilamaha inay xurriyad iyo madax bannaani maanta ku dhiiranayaan ama raadinayaan wagaag aad iyo aad baad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa saaxiibka daacad oo la socodsiinaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia daawada leedkan waad mahadsantihiin wararkeena xiga inta ka gaadhayna waxaan idinka tagaynaa amaana Allah